وبركاته داوديال مركله ومهد عبد الله عاوه والله قيبود بان u kala saaray barnaamijkan qayb waxa qayb guud sidaan ula kulmay maxamed siyaad barre cigaal oo markaa uu u xirnaa maxamed siyaad barre muddo badan u xirnaa habeenka kulmeen si gooni u kulmeen iyo gaar ahaan aniga iyo maxamed siyaad barre qaybta labaad oo soo wado waxaan ku wada hadalnay uu gooni igu sheegay oo markaa ka yaabin doonta qaybta hore watan barnaamij guud si guud magaalada muqdisho 1984 aad baad u mahadsantihiin daawasho wanaagsan commentigiinana waa loo baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadaagayaal ku soo dhawaada barta mahad cabdulla uu ku leeyahay youtube-ka haddii aad ku cusub tahay channelkan waxaan kaa codsanayaa subscribe iyo weliba share iyo like it ba aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay waa walaalkiin mahad cabdulla barnaamijkeenii maxaan u soo joogay ood iga barateen barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay horena aan idinka ballan qaaday waxa weeye la kulankii madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre iyo Maxamed Ibrahim Cigaal Allah u naxariista labadooduba haddaba sidee ku dhacday inaan si kedisa ula kulmo labada mas'uul watan haddaba sheekadu haddaba sanadkii bilowgii 80-nimadii ayaa ardayda Soomaaliyeed markay dugsiga sare ka baxaan waxay dhammaantood jeclaayeen inay waxbarashadooda ku soo qaataan dibadda gaar ahaan waddanka India iyo Pakistan iyo weliba Mareykanka haddaba waxaan ka mid ahaa ardadii sida nasiibka ugu yeeshay inaan waddanka India gaar ahaan magaalada Pune aan ku soo qaato waxbarashadeydii runtii iyaduna waxa dhinaca kale la ilaaweynin inay jirtay jaamacado aad tayo u leh sida Lafoole iyo weliba jaamacaddii Gahayr in ay aad uga tayo wanaagsanaayeen baaban aaminsanahay anigu jaamacadihii kale qaar ka mid ah waddanka India haddaba waxaa soo noqday horaantii 1984 markaa oon u imid inaan fasax hooyo soo booqday carruurtii walaalahayba waxaa haddaba maadaama ardaydaydii saaxiibaday inta badan ay waddanka ka maqan yihiin ku haray arday aad iyo aad saaxiibo aad u tiro yar waxaa ka mid ahaa saaxiibka waddankiisa iimaansaday kana shaqaynayay markaa go'aansadanay inuu ka shaqeeyo waddankii saaxiib qaaliya allaha u naxariistee maanta wuu naga hooseeyaa waa bashiir cabdi oonu isgalaas ahayn 12 sannadood baanu isgalaas ahayn bashiir cabdi igama foga waxa uu ii jiraa ilaa in ka yar 8 daqiiqadood oo lug ah markaa galabtii markaanu iska nasto oo iska soo qadeeyo ayaan gurigiisa oo markaa xoogaa aad moodo inay middle class ahaayeen aan ku nasan jirnay gurigayga aan markaa joognay annagoo video iyo tv-na muu oolin waxaad moodaa markaa inuu gurigiisu tv video iyo weliba cajalado kaloo muusiga ay daadsan yihiin oo tirada ka bateen taasoon jeclaa inaanu iska dhegaysto muusiga iyo weliba cajaladaha videoga waxaan aad u xiisayn jirnay labadeenaba ciyaarihii 1980 labadii caalamka lagu qabtay Spain taasoo cajalada lagu soo diri jiray waddanka Talyaaniga waxaana koobka ku guuleystay waddanka Talyaaniga waxa kaloo soo socda markaa ciyaaro la qaban doono 1984 dalka Faransiiska oo hogaamin doono Platini kabtankii markaa Faransiiska oo iyadoo aad looga sheekayo cajalada loo soo diro markaa anagu cajaladaha ayaanu aad u xiisaynaa iyo xoogaa muusiga oo ka mid yahay weliba Bob Marley dhinacana kugu raacaya xagga muusiga markaa galabtii marmarna waa la qadeeyaa marmarna waa iska nastaa macawis yaroon iska soo qaato iyo fulaanad caanan ku ahayo mobile oil ay ku qorantoon Sacuudiga kasoo iibsadeen waan sitaa halkaasaan ku nastaa guriga markaa inta badan labada waa la wada seexdaa ama la joogaa ama laga maqan yahay laakiin aniga albaabka waa la iga furaa fadhigaasaan iska fariistaa cajaladahaasaan daawadaa hadduu joogo iyo haddii kalaba galbaha ka mid ah haddaba ayaan sidii oo kale sameeyey waxaan iska soo qaatay macawisteydii waan iska soo lugayey markaan soo qadeeyey albaabka waxaa taagan laba qofood
ayaa dhinac taagan ima arkayn markaa way sii jeedaan midna wuu fadhiyaa sigaar bay cabayaan ganjeelada yar marka waa 2 ganjeelo ganjeelada yar baan ka soo galay way iska furnayd ganjeeladu markan waxa markaa ka soo horjeeda albaabka ugu soo horeeyay baa wuxuu noqonayaa fadhigii dhinaca midigta markaad u durugto waa qoraalkii fadhigii baan soo galay fadhigaa 2 fadhi oo kasii kala baxsan mid bidixda ah oo yar iyo mid midigta ah kan bidixda ah ayaa waxa yaala cajaladihii videoga tvgii iyo weliba musicgii oo markaa old fashion music ahaa markaa loona jiray musicgii saxanka ayuu ahaa waxaa fadhiya 2 nin in badanaa dadka waaweyn waxay fadhiistaan fadhiga kale fadhiga waxa yaala markaa aanu soo galay waa 2 kursi oo bidixda ka soo jeeda iyo 2 kaloo dhinaca ka soo jeeda iyo xabad armaajo yar oo armaajo yar oo koobab wata ayaa dhinacan iyaguna yaala oo cas waan xasuustaa sawirkii waxaa ku dhagan maxamed siyaad barraa ku dhagan dhinaca kalena waxaa ku dhagan faamiliga guriga marka anigu waxaan ka aqaanaa allah u naxariistee bashiir cabdi aabihii oo magaciisa la oran jiray cabdi madoobe oo markaa ahaa waqtiga ah baan ka hadlayaa darawalka gaarka ah ee madaxweynaha markaan sawirka marka meesha yaalla waxaan ka garanayaa oo kale walaalkii allah u naxariistay inuu dhintaan maqlay ma garan karo waxa weeye axmed iyo waxaa jirtay gabar aan iyaduna garanayo walaashii ahaa oo hostes ahayd waxaan raali gelinayaan magaceeda iminka uu iga maqan yahay marka proud bay ahayd maasha allah waxaan ka mid ahayn hablihii hosteska ah ee markaa Somali Airlines raaci jiray waqtiga maasha allah qolkii markaan soo galay oon dhinaca midigtaa fadhiistay ayaa waxa dhinaca bidixdaa fadhiya 2 oday oo Soomaaliyeed aad baan u salaamay waxaan ku yiri assalaamu calaykum waana dhaafay anigoo markaa maskaxdayda ay ka shaqaynayso oranaya tolow maxay qolka kale u fariisan waayeen marka qolkan aniga cajaladaha ku daawada oo cajaladaha sportiga ayaan aad iyo aad u xiisaynaa cajaladayda baan iska shitay Brazil iyo waxa ciyaaraya Talyaaniga 1982 anigoo hore u daawaday marar badan anigoo markaas u geliyay ayaa cirka waxa yaray codkii oo aad u dheeraaday marka odayaashu way igu dhaxeen codkii baan gaabiyey marka labadoodiiba aad uga may helin ixtiraam darrada ninkan odayga inuu iska soo galay cajaladihii iska shitay aniguna gurigan waxaan u imaadaa inaan cajaladaha daawado waayo marnaba ma haysano waqti jaanis aan meelo kale ku daawado badanaana way ku yaraayeen fiidiyoyo badanna may oolin waddanka anigoo sidayda u daawanaya ayay aamuseen aad bay aamuseen 2 oday markii dambe oday ka mid ah ay soo jeediyay wuxuu igu yiri adeer bal yara gaabi oo soo yara jeeso miyaad ka soo gasho miyaad degan tahay halkan waxaan ku yiri ma degani laakiin waxaanu saaxiib nahay bashiir gurigan waan imaadaa saacadahaasaan imaadaa halkan ku bedelay ciyaaraan iska daawadaa xagee baad ka timid waxaan ka yimid dalka India halkan waxaan ku joogaa fasax markaa odayga kala wuxuu igu yiri aabaha magacaaga oo magacii baan u sheego aabaha magacii marka aabahay magaciisa aan u sheegay ma garanaysaa anaga marka way shakiyeen ma ida garanaya adeer baan ku yiri kubadaan daawanaya maasha allah ama ka kalaba fadhiista ayaan raaciyay marka hadduu ida dhibayo qolka kale fadhiista marka way ka dhaadhici weyday halkan waxa lagu yiri lagu yiri 2 nin ee meesha fadhiyay deerka fadhiyay qof bini aadana ha soo daynin khatartayda leedahay halkan waxaan u nimid inaan iska sheekaysano qofna ha soo daynin odayaasha ka mid ah wuxuu igu yiri maad garanaysaan si fiican noo eeg waan garan waayay waxaan ku yiri garan maayo markaasuu yiri bal mar kale ku celiyo eeg waan eegay labadoodiiba waan yaabay marka waan naxay shock baa igu dhacay anugu maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistay marna maan garan laakiin waxaan gartay maxamed siyaad barre codkiisii markan 3 mar uu ila hadlay codkiisii iyo wajigiisii marka wuxuu xiran yahay fatshaari isku mid ah oo kaaki ah
maxamed ibraahim cigaalna wuxuu xiran yahay macawis iyo shaar isaguna kaaki ah ayuu xiran yahay iyo go' shaal ah, laakiin shaalka dhinacan ayuu yaallaa bidixda. maxamed siyaad barre marka aniga allah u naxariistay waxa iigu horreysoon arkay 1975 markaas aabbahay ka shaqaynayay oo ahaa kaabade barsonaale kollejkii caafimaadka ee markaa ka dambeeyey ee markaa ka soo horreeyey isbitaalka digfeer iyo wuxuu u dhexeeyaa qabrigii cabdirashiid allah u naxariistay. halkaa waxaa la furayay hool ku yaala, hoolkaa waxaa furayey oo furahayay aabbahay maxamed siyaad barre iyo agaasimihii waaxda kollejka caafimaadka oo la oran jiray jibriil allah u naxariistay, oo markii dambena uu maxamed siyaad barre dilay. jibriil iyo aabbahay waxay ahaayeen saaxiib aad iyo aad iskugu wanaagsan. marka maalintaa la furayey waxa anigu aan la socdaa aabbahay, aniga aabbo iyo jibriil baan u dhexeeyaa. maxamed siyaad waxaa la socda xagga dambe ilaalinaya markaa morgan oo aad u yar isna. marka albaabka markii la furayey ayaa furaha waxa u dhiibay aabbahay ayaa u dhiibay maxamed siyaad. furaybu furay, flower baa madaxa loo geliyey, aad buu u ammaanay hoolka iyo shaqada la qabtay u ammaanay. maalintaasaa iigu horreysay aniga inaan sii agtiisa aan istaago la kulmo isagoo dhallinyaraa. marka waa 1974-75 labadaa meel wey. waxaan jeclahay inay 1974kii tahay 74. waxaa ku xigay markaa inuu yiri maxamed siyaad barre jibriil ha la soo qabto oo ha la dilo. markaa waxaa la soo qabtay oo la xiray jibriil. aabbahay iyo jibriilna aad bay saaxiib u ahaayeen. maxamed siyaad barre wuxuu go-aan ku gaaray in jibriil la dilo. si kasta oo loogu tegay maxamed siyaad barre wuu ka diiday in ninkaasi la dilo, xukun dil lagu fuliyo ayuu go-aan ku gaaray. dad badan oo markaa ka soo jeeday waqooyiga, isagoo jibriil waa reer boorame, ayuu markaa loo tegay oo si kasta macaana aabbahay uu tegay uu ka diiday. allah u naxariistay jibriil meeshii baa lagu dilay. annaga runtii maxamed siyaad barre aniga weligay waxba iima geysan, laakiin naxdintii aan jibriil ka naxay ayaa maskaxdayda ku jirta. 2 shilin iyo shilinka ayuu isiin jiray markaan yaraa 1973 wuu dhaqaalayn jiray. marka maskaxdayba way ka bixi weyday jibriil inuu dilay maxamed siyaad barre. waxaa kaloo taa kasii darayd inaan inantiisii oo markaa uu dhalay aan isgolaas noqonnay, oon halkaa mar walba aan soo xasuusto magaceeda markaa la rabaabo. markaa taa mooyaane wax kaloo dhibaato ah oon maxamed siyaad barre kala kulmay haba yaraatee ma jirin. markuu intaa igu yiri wuxuu yiri ayaan gartay, ayuu igu yiri maxaad ka soo doontay meeshan, yaa kuu fasaxay, yaa ku soo geliyey halkan, yaa ku soo diray. aniga wadno gariir iyo naxdin iyo waxay hor yimid allah u naxariistay jibriil. ninkii odayga kalaan eegay waxba waa ka garan waayey. markaasuu ii sheegay ninkan ma garanaysaa maya, wuxuu yiri waa maxamed ibraahim cigaal ma maqashay? haa waan maqlay cigaal oo aabbahay bay saaxiib yihiin, maxaa iga yeersiiyey intaana. markaa nasiib wanaag naanaystii aabbahay baan joojiyey inaan sheego, laakiin waxaan aabbahay maxamed cabdillaah baa la yiraahdaa. way garan waayeen, si kastay u baareen waa la garan waayey. waxaa loo keenay 2 nin ee booliiskii ee bannaanka joogaan markiiba soo galay. way naxeen anigoo gudaha ku jira, 2 ninna fadhiya. 2dii waxaa laygu yiri qolka kala gal. qolkii kalaan galay, waa lala hadlay. 2 nin baa ii yeeray, waa la ikaxeeyey qol gooni baa laygiriyey. goormaad soo gashay? maxaad ka soo doontay? xageed ka timid? sidee baad u hayd? handadaad waxaa la isaaray xad dhaafa oo naxdina. nasiib wanaag waxaa ii yeeray mar kale maxamed siyaad barre. qolkii baan soo galay. bashiir ma joogo, saaxiibkay bashiir allah u naxariistay. qolkii markaan soo galay oon la sheekaystay oo si wanaagsan bay markaan ii galeen. waxay garteen inaan maaragtay ahaynin aan waxbaba la socon, sheekada la socon. inaan markaasuu igu yiri miyaad, waxaan ahay madaxweynihii, arday wanaagsan baa tahay, nin wanaagsan baa tahay, halkaa imika gurigaaga tegaysaa, inaan halkan nimid, inaan halkan soo galnay, inaan halkan fadhinay
cid bani aadana uma sheegi kartid. markaa wuxuu la hadlay labadii nin, wuxuu yidhi kaxeeya, gurigiisa geeya, magaciisa iyo baasboorkiisii kasoo rajis gareeya, kadibna war waa inaan ka helaa. isagii shaah baa la keenay. shaahii markii loo keenay meeshii lasoo fariistay, shaah cusub ay ugu yidhahdeen shaahaga cab. shaahaygii baan cabay. waxbarashada nooga waran. markaan wuu i dejiyey. wuxuu arkay gariirka iyo naxdinta iyo anigana 5 cisho kadib waan dhoofayaa. si wanaagsan buu ila hadlay, wuu i dejiyey, wuxuu igu yidhi wax dhibaataa ma jiraan. waanu yaabnay, waayo halkan inaad iska soo gashay. marka waxaan idin soo dhaafay, waxa u xirnayd fatashaariga hoostiisa bastoolad baa u xirnaa, oo markaa gees yarka marbar ka banaanaysay odayga. si wanaagsan buu runtii ila hadlay, si wanaagsan buu ii qaabilay. wuxuu igu yidhi safaaradda India yaa jooga. safaaradda Indian u sheegay, markaa waxaa jooga Caydiid, allaha u naxariistee, ayaa markaa jooga oo safiirka ka ah safaaradda. markaasuu gartay inaan run sheegayo. waxaan kaloo sheegay ninkii Caydiid ka horreeyey, safiirkii ka horreeyey isna ayaan u sheegay. si wanaagsan baan u wada hadalnay, si wanaagsan bay ii soo dhoweeyeen. wax dhibaato ah Ibraahim Cigaal baa si fiican buu ila hadlay, way i dejiyeen. laakiin de gariirka 5 daqiiqo suuliga inaan gala ayaa igu dhacday, inaan suuliga galo every 5 minutes, inaan kaco suuliga galo. shaahaygii baan iska cay, bal hadda waa kaase arka. waxaan kici kari waayey, iyadoo laigu yiri oo iska tag, ayaan bixi waayey. markii dambe ayaa labadii askari ii yeereen. odayga si fiican buu ii salaamay. waxay igu yidhaahdeen wax dhibaataa ma jiraan, isdeji, gurigaaga tag, safar wanaagsan, waddankaagana wax u soo baro, oo markaad wax soo baratana soo noqo. meel alla meeshaad doonaysidna waad ka shaqayn kartaa. waddankaaguna waa kuu baahan yahay. dadkan oo kale oo adigoo kalea loo baahanya. sigaar miyaad cabtaa? maya. qaadkan iyo waxaana ha cunin. aad iyo aad baan idinku salaamayaa adeer, khayr baan isku ognahay. sida waayahay madaxweyne ayaan ku waashay. 5 cisho kadib markaan waddankaa 5 cisho kadib la kulankaa madaxweynahana waan dhoofay. waxaan tegay markaa waddanka India. markaan sidaa u degay 2 cisho kadibna waxaa ku dhacay accident, oo isagoo gaari wato inta u dhaxaysa xamar iyo afgooyo gaari la dhacay. annagana warkaan sidaa ku maqalnay. runtiina waxay ahayd murugo xun. waqtigaa wixii ka dambeeyay dareemay. waqtigaa wixii ka dambeeyayna odayga xaalkiisu accidentkaa kadib xaalkiisu ma wanaagsanayn. aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. waa barnaamijkeennii maxaan u soo joogay iyo la kulankii Maxamed Siyaad Barre iyo Ibraahim Cigaal. waad salaamantiin dhammaantiin.